baad waxaanu ku soo gudbinaynaa akhbaaraadka iyo wararkii soo kordhay intaynu kala maqnay. Hormuz buuq fara badan ayaa ka taagan iyo xiisad warar kala duwan ayay Iiraan iyo Mareykanka soo kala saareen saacadihii la soo dhaafay. wararka qaar waxay sheegayaan in maraakiib Mareykanku leeyahay nagta laga saaray oo kuwa dagaalka ah. Mareykanka wuu ka jawaabayaa xaaladda guud waa sidee. wararkii ugu dambeeyay oo aan soo ururiyay xiisadda colaadeed ee maanta ka taagan Hormuz ayaynu barnaamijka ku bilaabi doonaa. qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaanu ku soo gudbin doonaa hooyo muslima oo dhashay 9 caruur ah hal mar kaliya 5 sano ka hor ayaa maanta waxay u dabaaldegaysaa sanad guuradii 5aad ee caruurteeda 5 sano ay ka soo wareegatay iyagoo wada caafimaad qaba. waana adduunka haweeneyda kaliya ee mar qura 9 caruur ah dhashay. haddaba sidee wax u dhaceen caruurta iyo dabaaldegooda? haddaba qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa intaanu ku jirno. wixii warar ay soo kordhana waan idinla socodsiin. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena labaad. maanta waa Isniin, taariikhduna waa 4 May 2026. haddaba barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa intiisa badan Hormuz xiisada ka taagan. haddaba marinbiyoodka Hormuz sheekadan cusub ee hadda colaada ee dhalatay waxay soo bilaabatay xalay saan barnaamijkeygii koobaad ku soo sheegay. Trump wuxuu yiri waxaa la sameynayaa mashruuca xorriyadda waxa la yiraahdo oo maraakiibta la xoreynayo. waxa meesha ku xaniban oo dhan waa fasaxayna annaga iyo dawlado kala iskaashanayna waa asaasa sameyneen. Iiraan waa tay diidanay oo ay u hanjabaysay barnaamijkii hore ka hadalay. marka maxaa soo kordhay hadda? marka waxaa soo kordhay Iiraan waxa ay gantaal ku riday iyo rasaas markab doonayay inuu maro Hormuz oo markaa maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ka mid ah. haddaba sheekadu marka way qasantay. rasaasa ku ridnay iyo gantaal saaruuqa ku ridnay. Washington Post jaridda la yiraahdo Mareykanka iyaduna waxay qoraysaa 2 markab oo ganacsi oo Mareykanku leeyahay oo kuwii meesha ku xanibnaa oo calanka Mareykanka wata meesha soo maray. maraakiibtan Mareykanka marka maraakiibtaas ay waardiyeysanayeen haddii la taabto inay iyaguna dagaalamaan. marka buuqaasaa jira. waxaa sidoo kale Iiraaniyiintu ay leeyihiin wax soo mari kara meeshan iyo wax maray ma jiraan, beenay dadkani isku akhrinayaan. marka intaasoo warara oo kala duwan oo qolo walba waxay doonto sheegayso. maxaa gaaray marka? ilaa hadda marka wax tafaasiil oo badan wixii gaaray wax kale iyadoo la haynin ayaa hadda waxaa war soo saaray Washington ama dawladda Mareykanka. marka wararkaasa marka meeshaas halis weyna ka soo socota la leeyahay. halis weyna meesha ka soo socota. Iiraan waxay bilowday rasaas iyo madfac digniin ah. maraakiibta Mareykankana waxay ku soo dhawaanayaan Hormuz. marka waxaa dhici karaa lagu leeyahay saacadaha soo socda dagaal halkaas ayuu ka qarxi doonaa, dagaal badda ah. marka sheekadu marka halkaas maraysaa xaalkii ugu dambeeyay. dhanka kale isla Hormuz aan ku jirnaa. shirkadda shidaalka Abu Dhabi ayaa waxay ku eedeysay Iiraan inay weerar ku qaaday markab ay leedahay Imaaraadka oo shidaal waday. Imaaraadka iyo Iiraan iyaguna halkaasay isku hayaan. Imaaraadka markabkayga maxaa loo weeraraa uu yiri markaba ka hadlaysaa leeyahay hal gantaal loo dhiibaa leeyahay. hadda Imaaraadku waxa leeyahay gantaalkii difaac uga jiraan. marka sheekadaas iyaduna waliba waa wararkii Hormuz aad iyo aad ayay u qasan tahay xaaladda. haddaba warar goordhow soo dhacay waxay sheegayaan in Mareykanku ay sheegayaan 2 markab oo ganacsi oo iyagu ay leeyihiin inay maanta ka gudbiyeen si nabadgelyo ah marinbiyoodka Hormuz. haddaba sidee wax u dhaceen? Iiraaniyiinta iyagu wax wara oo ay ka soo saareen 2 markab ee Mareykanka ee ganacsiga ee halkaa gudubtay ma jirto.
marka kolley xaaladdu way kacsan tahay taagtaag fara badanaa ka jiraa leeyahay meesha xaalku marka ma fiicnaa la leeyahay waayahay haddaba marka qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan idinkugu hayaa arrin aada cajiib u ah 5 sano ka hor haweenay muslimada oo u dhalatay waddanka Maali ayaa mar kaliya waxay dhashay 9 caruura 5 gabdhood iyo 4 wiil ma sha Allah ilaahay awoodiis waa 9 cunug oo hal mar ay dhashay waliba Maali waa laga soo kaxeeyay aaday caloosheedu u weyneed waxa la keenay Morocco isbitaal Morocco ku yaala lagu qalay waa 5 sano ka hor adduunkii ayaa bara qofkii ugu horeeyay bini aadam ah inta taariikhda la og yahay 9 cunug mar kaliya dhala waxay noqotay gabadha muslimada ah marka maanta waxaa la gaaray sanad guuradii 5aad ilaahay wuu u badbaadiyay caruurtaas 4 wiil iyo 5 gabdhood waa u badbaadiyay iyagoo isla ciyaaraya iyagoo iskuul wada aadaya hal mar 9 caruurta hooyada iyo aabiyo hal mar wada kaxaynaya wadada dhan way kugu cariirinayaan koox dhan oo socoto waay kooxda kubadda cagta ee garoonka gasha waa 11 waa maamada iyo odaga hadii lagu daro waa koox dhan oo socoto waay oo kubadda cagta ciyaaraysa ma sha Allah qoyska muslimka ah ilaahay marka waxay yiraahdeen wuuna barakay marka hore waa naxnay dad iska danyar ahaayeen waxay lahaayeen 9 cunug xagee wax uga keenaysan 9 waadika waxa cuntiin weysan laakiin ilaahay wuxuu noo sheegaa وشكرتي عجيبة واي أود إلهي واي 9 عنق أو مركلية قوس إسكدن يرى واي هل مرة دشي 9 كي وكواس ويوتشوغان ويسكو فرح سيهين أيدي أودوغيدا 9 كودي كورسانيان هل مر 5 قبلود يو 4 ويل واي ما شاء الله إلهي هو بركة يا ليلى إذا كانوا الدعاء إدان عرور هيسن إن إلهي سيو دعاء مركا هوشا سؤالكاس مرسا قدر حيسيسا كدي وحن ايغي دونا بل وحي ورارا soo dhacay xaaladaha taagan gaar ahaan Hormuz ayaanu eegi doonaa xayisiinta kulati wanaagsan marka la asxaabay meel kasta joogtaan waxaan maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka warar soo kordhay ayaanu hadda gacanta ku hayaa taliyaha ciidamada Iran ayaa hadlay wuxuu sheegay annaga ku ridnay maanta madaafiicda markabka Mareykanka waxbana la kuma soorina duu yira waa beentiisu leeyahay annaga ku ridnay gantaala waxayna ahaayeen waliba fariimo digniina raadaarkii uu soo dansaday markabka wuxuu rabay inuu Hormuz ku soo dhawaado annaguna marka waa la soconay dhaqdhaqaaqiisa annaga ku ridnay meeshan marka wuxuu yiri waa line cas cidii soo gasho waa ku dhufarayna Hormuz cidii soo marta waa ku dhufarayna marka hadda waa digniin banaanka asagoo joogo soo dhawaada ku ridna gantaala annagana ku ridnoolay marka warkaas waa cusub yahay isaguna uu soo baxay dhanka kale imaaraadku waxay sheegeen wasaaradooda gaashaandhigga iyaduna goordhow waray soo saartay 3 gantaal oo Iran laga soo riday ayaan ka hortagnay 3 gantaal oo Iran laga soo riday ayaanu iska caabinay oo nala ku soo riday sababta loogu ridayaa yaqaan lama yaqaan Iran sababta ay imaaraadku u weerartay kulay waxba laga dareemay imaaraadku waa loo juciyay marka waa arkayna kulay wararkaas ayaa soo kordhay wixii akhbaarada